بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa canab cabdi cabdulaahi canab kululi. inta badan dadkan deegaanadan kasoo jeeda aad bay u yaqaanaan. soomaaliyana kulley waxay iga baratay aaladda internetka. marka hore waxaan ku bilaabayaa magacayga wasaan idiin sheegay waa canab cabdi cabdulaahi canab kululi. waxaan dareemayaa oon tabayaa in maalin dhaweyto xilliga ciidamadii daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland uu hogaaminaya wasiir jiran ay yimaadeen oo shirka lagu qabtay doolow. hadal xoogaa yara qadafa inuu iga dhacay baan dareemayaa. hadalkaas oo aan ahaa inaan rasuul ninkan waa rasuulkii deegaankan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadiis deegaankan ninkii loo soo diri weeyey waana arrin qalboo dhacday sababtoo ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa rasuul lama soo dirin. aniguna marka ayada ahayd diinta islaamka ku jiirfal iyo xoogaa dembiga igama ahayn. waxaan ahaa maadaama dad dagaal iyo problem u taagan aan aniga naftarkayga aan qayb ka ahaa ummadda soomaaliyeed ayna dagaal iyo problem ayna waxba hadda ayna u taraynin oo horumar aysan dagaal iyo problem aysan ahayn. deegaanadii aan kasoo jeedin dhawaanahan colaad ay ka jirtay. waxaa jirtay hadda ka hor xilligii saxaabada nin rati watay oo ratiga uu u saarnaan jiray saan dhageystay waxaa u saarnaa biyo iyo waxaa u saarnaa caano iyo wuxuu ku noolaan lahaa. ratigii asaga ahaa ninkii waa ka lumo. marka uu ka lumo geed buu hoos seexday. geed markuu hoos seexday oo indhihii uu kala qaaday uuna baahnaa waxna uusan haysanin yuu yiri indhihii markuu kala qaaday yuu ratigii geed ka daaqay. markaasuu yiri meeshuu dhihi lahaa ilaah wadaa mahadii shukri iskale addoonkaagii baan ahay waad soo xilfuratay meeshuu dhihi lahaa yuu yiri ilaahayow adigana addoonkaygii baa ta anna ilaahaygii baan waxaa ka keenay farxad bay ahayd. aniga hadalkii qadafkoo iga dhacay waxay ahayd caradii oo nabad ka dhacday dagaalkii oo soo gabagaboobay anigana ilaahay qadartii uma dhihin sida ayada inaan u dhahana igmaba jirin laakiin carab boye waxaan anigaan ku hadlayay carabkaygii yaa qaladkii ka dhacay shaydaan bayna ka sugnaatay. culummada soomaaliyeed iyo intii ii arkaysay inaan qalad galay isla markiiba aniga bacdalmaqrib waan ka toobadkabay ilaahay waan bari waxaan ilaahay oo addoonkaagii baan ahay waan dambaabay waana kuu soo noqo tuubu ilallaahi towbatan nasuuxa. culummada soomaaliyeed iyo intii waxgarada waxaan ka codsanayaa in anigana qaladka iga dhaca ilaahay uga toobad keenay ayaguna ay ogaadaan oo ayaguna ay afiyaan ilaahay baa cafi iskale. intaas markii aan kasoo gabagabeeyo waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto way isku dambooday qof dambi qabay qof aan dambi lahayn. waxaa weeye anigu waxaan codsanayaa dadku muslimiinta ciddii aan wax ka galay iyo cid aan wax ka gelin magacaygii baa la wadahayay in la cafiyo. aniguna inta muslimiinta oo laa ilaaha ila allahu aan ku kulanno cafiya masaamax bay iga yihiin khaasatan culammada soomaaliyeed cidda aniga ii gaftay cafiya masaamax ciddii aniga gufeen hay cafiso. culammada soomaaliyeed waxaan leeyahay waan ka toobad keenay dembigii aan galay insha allahu bilkariim ilaahayna waa u toobad keenay. adinkana waan idin xaqiijinayaa towbadan waa furan tahay. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qoomkayga ka mid maaha qofkii aan qaldamin qofkii aan kasoo noqonna ka mid qaladkaygina waan qaatay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.